السلام عليكم وبرنامجكي Addaani iyo Xulashada todobaadka marka aad tahay mardhoof iyo qof aan diyaarad hore u raacin ama wadan kale hore ugu safrin waxaad la kulantaa dhacdooyin iyo mahadhooyin la yaab leh. Tani waa sheekada Goodirka Howd iyo safarkiisii. Xuquuqda qoraalkani waxay u dhowrsan tahay Goodirka Howd daawo wacan. mid ka mid ah sheekoyin dhowr ah oo aan safarkaygii dheera ka qoray waa hoteelkii Addis Ababa iyo arrinkii aan kala kulmay. sideedaba anigu ceeb uma aqaan qofku waxa uusan aqoon ee soo mara inuu dadka uga sheekeeyo ee bal warkan si fiican iga dhageysta. qoladii wadatay diyaaradii aan soo raacnay ayaa nagu tiri 8 saacadood ayaa transit ku ahaanaysaan Addis Ababa waxaan idin geenaynaa hotel aad ku nasataan kana cashaysaan. fiidkii ayaa hoteelkiina la keenay. qof walbana warqadii uu watay oo cadeynaysay nagaashihiisa hoteelka. goortii la arkay ayaa inta fure lambar la siiyey. waxa la geeyey qolka lambarkiisa uu furuha ku qoran yahay si uu uga quweysto dharka ugu bedesho xoogana ugu nasto. weligeyba aniga nasiibkaygu waa iska gooni daaqe. qolalka dabqa qaybtiisa ugu sareysay ku yaalay kii ugu geysayeyba saamigu iigu dhacay. isagii baana inta lay horkacay la igeeyey markaan garan waayay. kuwii kale oo Soomaalida ahaa ee ila socday iyagu sidoo kale qolal bay kala degeen kor ilaa hoos inta u dhaxaysa weliba si taxana ah. diyaaradii baan ku soo daannay ilaa maanta samada nala soo heehaabaysay. sina waan u jectaadsanaa kaadad xununa way haysay. qolkii baan intaan furay oo suuliga galay baan quweysay isiri mise biyuhuba waa kuwii talaagadaha ku jiray oo qabow ahaantana looga iibin jiray xagga markaan joogay oo isma taabsiine. anoo sideedii ah baan suuliga ka soo laabtay. awal qubeyska ma jeclayn. dhar anigu ma wadan oo boorsadeedii dayuuradii bay la jirtaa. go-yaasha sharirta korkeeda saaranna waan ka shakisanahay oo waa maryo ajnabi. waxbaaba iiga soo uray inkastoo ay nadiif ahaayeen been lama sheege. qolkaygu daaqad muraayad ah buu lahaaye. xoogaa goortaan jiifay baan intaan soo kacay daaqadii soo istaagay si aan wax uga fiirsho. markaasaa waxaan arkay dadkii oo aad quraanjo moodid iyo gowaadhidii oo ilku wareedhay meel hoosaa dhulka maalingeynaya. saa intaan ku wareeray oo naxay ismooday inaanba kasii dhacayo meesha. sarirtii xaggeediina ayaan gadaal ugu soo cararay. wax yar goortan fadhiyeyba taleefanka laynka oo meel agteeda saarnaa ayaa soo dhacay. markaasaa intaan ku naxay fiirshay oo qabo isidhi. saa haddana waan iska daayey. waxaana aan iskula hadlay oo isku idhi dadka waxooda faraha ha la gelin. show taleefonka dhacyaba anaa la ii soo diray oo cashadii baa la igu yeedhay. mase garan ilaa ma aqoon qalabka shaydaane. xoogaa goortan fadhiyey oo taleefonkii dhowr jeer lagu soo celiyey si aanan qaban ayaa albaabkii la igu soo garaacay. qofka albaabka garaacaya waa gabadhii isoo wacaysay ee qaybta qaabilsanayd hoteelka receptionka joogtay oo markan ka qaban waayey isoo raadisay. intaan soo istaagay baan albaabkii furay mise gabar gaaban oo madax qaawan oo naasaha iyo bowdyuhu muuqdaan oo dabagaab qabta baa ilinka taagan. waxaanan garanayn oo buuja ahna waa iigu tiray. naxdin foorjo iyo wax yar oo farxad ahba intaan isku mar iqabtay waxaan ku dhaygagay gabadhii anoo kor iyo hoos hal mar isha si fiican u wada marshay. cilmi dhagoodka iska kutiri kuteenka oo madaxa iga buuxay ma yareene.
waxaan soo xasuustay kuwii dibadaha ka iman jiray oo nagu oran jiray qurbaha naaguhu waa dad wararac meel walbana iyaga oo taagtaagan baad iska helaysaa. dabeedna waxaan isiri tan adaa caawa malaha lagugu talagalay. awalna qolka markaan qolka soo galay baan waxaan arkay 2 barkimood, 2 go, shukumaan iyo barafuun yar oo sariirta korkeeda saaran. oo waxaan ka sheekaysnaa alaabtan dheeriga cidda loogu talagalay. ileen qolka keligayba furihiisa la isiiyey. gabadhii oo ilinka taagan oo ila hadlaysa aan se isfahmi la'nahay lana yaabanahay ruuxeeda sidan u fiirinaya oo ugu soo kakan aniguna aan baqbaqayo balse aan xoogaa si u rabrabo inta wixeedii muuqday naxay anna isleeyahay maxaa meesha taagay may soo gasho qolka intaad waqtigu dhicin aad boobsiiside. mid baa kuwii nala socday ah oo isagu dhowr jeer dhoofay wuxuu ka soo baxay qolkii kayga ku xigay. wuxuu arkay anoo meesha wada taagan markaasuu gabadhii la hadlay. dabeedna anigii wuxuu igu yidhi war cashadii baa laynoo keenaye inakeen soo dego. markaasaan gabadhii iga soo dhaqaaqday goortuu waxay fahansiiyey. anuu warkaa u sheegay aan ku farxin baan iska soo raacay neefka. markaan hoos u soo daadegnay ayaa waxaan nimid meeshii cashada lagu diyaarshay. qof walbana xeero ayuu intuu qaatay buu 10 digsi oo is ag yaalay wixii ku jiray intuu rabay kaga soo gurtay. goortan cashaynayba intayadii wada socotay aniga oo meeshii ka hadhay maahane qof walba wuxuu ku noqday qolkiisii. anigu waxaan ku hadhay oo aan fiirsanayay waxaan arkay oo aan la yaabay. meeshii aan ku cashaynaynay albaabkeeda laga soo baxo albaab kale oo geeskiisa oo muraayad leh bay dadku inta ay galaan oo istaagaan goortuu ku soo xidhmaba meelay aadeen la waayay. waa wiish dadka jaranjada dheer fulitaankeeda ka waasadaa ay qaybta kore ee dabaqa u raacaan. anna ma aqoon waxa oo awal baan markii hore aan imanayayba la yaabanaa dadkan inta meesha isku wada xareeya aan jaranjarta lahayn hadhowna xagga sare ka soo wada baxaya. dhaqso intaan anigu wareegga dheer soo gelayay. intaan soo dhaqaaqay baan meeshii laga gelayay soo istaagay. mise waa xidhan yahay. gacantaan ku riixay mise furmi maayo. san 2 gacmoodba waan iskugu geeyey mise walay ka tahay. goortuu riixitaankii gacmaha ku furmi waayey baan 2 fidqo mid inta lugta ku qabtay tii kalena gacanta ku soo qabtay midna dhinac xoog ugu riixay anoo isla kala jiidaya sidii nin rati cayminaya oo kale. wuxuu ileen riixitaan iyo khasab toonina kuma furmee bottom baa la taabtaa marka la gelayo. markaasay albaabada muraayadaha ahi 2 dhinac u kala dhaqaaqaan. anoo bahalkii la rafanaya oo intaa ku dhib mutay markaas raba intaan ku soo ordo raati xooga ku furo baa gabadhii shaqaalaha ahayd oo ilaa caawa i fiirsanaysay sidaan wax lahaa intay igu soo roortay oo xoog iigu qaylisay. waxay igu tidhi hadal u dhigmay ama uu micnihiisu ahaa waryaa kadaa meesha laadka maxaa kaa qaldan miyaad waalan tahay. markaasaa intaan bakaday oo istaagay anoo gacmaha ka hadlaya ileen ma afaqaane waxaan gabadhii u tilmaamay inay iga furto meesha si aan u dhex galo. intay soo dhaqaaqday oo meeshaan taagnaa timi bay derbi dhinaca naas bottom ku yaalay tuujisay. markaasaa albaabkii furmay. say gacanta inta igala hadashay galdeed tilmaan iigu tiri anna ma sugine hore baan ka galay. intuusan xirmin albaabkii bay bottomkii badan oo gudaha ku yaalay intay farta igu fiiqday waxay ii tilmaantay inaan taabto kan ku qoran yahay qaybtaan deganahay lambarkeedu. albaabkiina waa isku yimi xidhmay. hadda gudihii baan ku jiraa keligayna waan noqday. waxaa dhacay doonana ma aqaan anoo si u baqbaqaya baanan botankii ay ii sheegday say gabadhu riixay.
markaasuu wiishkii jag inta yiri oo hinqaday kor ila dhaqaaqay. hal mar baa uurku jirtii i dhaqdhaqaaqday oo calooshii i rogrogantay oo lugihii i dhuuxshubeen oo bowdihii i dubaaxiyeen oo madaxii i wareeray oo waxaad kaadi moodid balse aan ahayn i qabteen. markaasaa inta bisinka boobay anoo nafta u yaaban iska fadhiistay. waa qasab haddii aad xaalad kadisa gashid oo aadan waxba ka qaban karin inaad naftaada ciilkaambisid. waxaan iskula hadlay bal maxaa ku watay oo aad higladaadii uga soo tagtay? maxaa caro kala fiican dhul gaalo ku keenay oo weliba qalab shaydaan oo aadan aqoon ku saaray? allayle naftu mar bay leedahay maanta waa taadii ee iska istakfirulayso. ashahaada ayaan boobay. waxay soo baxday 2 arrimood oo aanan midkoodna badbaado ka filan. waa mide mar waxaan isiri bahalkani sidii kula sii roorayo baad dabaqa dhaladiisa ka duulaysa faniinaysa ama meesha qashinka lagu daadiyo oo haadaanta buu suu kula sii ordayo kugu daraya. waa midda labaad meel kale baa inta uu ku geeyo oo mid kale kaa qaado buu midba sidoo mid kugu dhiibayo oo balow ku sidato. marka dambe waxaa kugu soo xirmaya meel cidla ah oo cid kaa furaysana meel oo keliga ah baad tegaysaa. ugu dambeyntii talo waxay iga soo idlaatay inaan ilaahay isu dhiibo suurado quraan ah oo aan hore igu dambeysay oo aan ilaaway baan afka saaray. dhowr jeer baana tiiba dhameeyay oo aanan ogeynso. waan fadhiyay istaag baan isiri oo bahalka orod uga bax intuusan kula laaban ama uusan meel kale kula aadin. mise maba kici karo oo lugaha ruux igama jiro. saan gurgurashaan uga soo baxay anoo xawliga uu wadnahaygu ku socdo iyo neeftuurka iga baxayana la yaabayo. wiil iyo gabadh Soomaali ah iyo nin madow ah oo qolkayga u dhow deganaa oo markaa meesha taagnaaba i arkay. markaasaa intay igu soo ordeen oo mindhaa inaan xanuunsanayo imoodeen dhididna waa iga socday. waxay damceen inay gacmaha inta ay qabtaan i istaajiyaan. saa intaan dirqi ku istaagay anoo istiilaya idhi bannee war orda naga taga xagee faraha noola soo aadaysaan. markaasay yidhaahdeen saane dee waxba maxaa idinku samayseen oo meesha idin taagay maad qololkiina gashaan waad edab darantihiin. iyagoo qoslaya oo meeshii taagan baan intaan ka dhaqaaqay anoo kabowaysan oo cagaha jiidaya oo qolkaygii galay baan sariirtii ku fadhiistay. xoogaa goortaan fadhiyey oo aan nastay baan intaan soo baxay hoos u soo daadegay. jaranjartii baan intaan soo raacay waxaan soo istaagay meeshii aan wiishka ka soo raacay markii hore balse aan bahalkii u soo fiirsho inuu yimid iyo in kale. cabbaar markaan meeshii taagnaaba nin iyo naag wada socday yimaadeen oo galeen. markaasaan anna isidhi haddana mar kale raac xooga raaxo ah waatuu lahaaye. inkastoo aan haadayay isku qasqasmay haddana markan sidii hore waan dhaamaa oo tababartaye. meeshii baan intaan taabtay oo galay baan haddana tii kale oo gudaha ahayd riixay suu sidii buu samada ila aaday. sidii hore oo kale ma noqon balse xoogaa baan isgalaye goortuu kor i geeyey baan intaan sideedii jaranjartii la soo orday oo goobtii imid misena mar saddexaad raacay. gabadhii oo fiirsanaysay inta jeer oo aan fuulay bahalkan baan inta markii afraad anoo ilinka taagan oo isu diyaarinaya inaan haddana raaco inta ii timi qaylo dhagaha igagala raacday. saa intaan oo isiri waxaan lagugu imtixaamay maxay tahay oo dhiiqo ku sii daayay baan bahalkaygii iska raacay. markaasay kuwii Soomaalida ahaa ii sheegtay. show iyaguna kuwan Soomaalida ahee ilaa saakay markaan diyaaradda soo raacay iyo caawa intaan ka dhex leh jaranjarta airportka markaan raaci aqoon waayeyba ha igu darnaatee fartan qadaba way u jeedeen wayna ku qoslayeen. dabeedna inta ii yeedheen markaasay kuwii Soomaalida ahaa ii sheegtay. show iyaguna kuwan Soomaalida ahee ilaa saaka markaan diyaaradda soo raacaynay iyo caawa intaan ka dhex leh jaranjartii airportka markaan
raaci aqoon waayeba hay ugu darnaatee fartan qaadaba way u jeedeen wayna ku qoslayeen dabadeedna intay ii yeereen bay iyagoo beerka caddaaday waxay igu dhaheen warniyow caadis ka dhig oo wixii aadan aqoon annagana weydii carradan ha ku qarribine inkastoo cabbaarkii hore markay igu qoslayeen aan xoogaa isadkeeyey oo xitaa aan mar ku yidhi adaan anigu waxaan oo dhan waanan aqaan ee waan isaga ciyaaraa oo mar baan xitaa jayna tegay haddana aniguna liididda ayaan nacbahaye talada wanaagsan ma diidee markay si fiican ila hadleen intaan garowsaday baan ku yidhi war bal waayihee hoos wax iigu sheega idinkoo aan igu qosin oo aan dadka kale iyo gaalada igu ceebayn